waxay idin sheegayaa qiso yar oo kooban wiil yar oo ku dhashay deegaankan oo quraankii oo yani oo ku dhameeyay oo xoolo raac ahaan jiray asaga oo 16 sano jiro wuxuu go'aansaday maalin walba ma waxa raacaysaa geel iyo ari noloshaan wax ka bedelan samay dugsigii oo quraanka mar iyo laba iyo saddex waa dhameysay walaalo wax kala jiree wax uun samay wiilkaas asaga oo 16 sano jiro oo ku dhashay degmada hobyo wuu soo lugeeyay lug oo wuxuu ku soo galay muqdisho wuxuu soo raacay dad oo xoolo dhaqato ah oo soo waday xoolo uu soo raacay markii la yimid muqdisho qof uu ka yaqaan malaha ahli iyo qaraabo wax u jooga malaha markiisi horena waa soo dhuntay oo wuxuu ku soo galay meesha lug dadkii waday xoolaha waxay ku dageen meel masaajid ah oo uu lahaa nin oo deegaankan oo ka soo jeeda markay tageen masaajidkii uu ka dhuntay dhaxleen war hebelku aaway war waa almuhiim waa la waay masaajidkii oo wuxuu ka bilaabay in uu ka shaqeeyo uu xaqo oo yani dadka oo xirta ah oo ku biiro uu qaato kutubaha uu la barto uu xaqasi uu ugu helo meel uu seexdo sidoo saas oo ahaa wuxuu bilaabay iskuul inuu aado يعني إنه هل قلنا إسكول هذا هل قلنا وشقسته وحو قد جري اللوس وحيالها أول ورجيو إن قلنا وحو وآذي جري إسكول إساقو ساس أو نوين أو لباتن جرأة أو وطو إن دوغاب أو دوكسيق هوساء جوغا أو حساب باقضي إن دالكا إن قلا مساري markaasaa la dhahay ninkan weyn oo 20 sano jira iyo ilmahan maxaa waay isku fasalaa markaasaa la dhahay maxaa dhacay markaasuu dhahay saasay tahay intaas oo kiiloomitir aan u soo lugeeyay in aan wax barto markaasay dhaheen wiilkan annaka ka faala qaadeena iskuulkiisa ilaa iyo jaamacadiisa ma naqaano ehel ma laha ehelkiisa masaajidka waaye sax waxa waaye qof leh aabo iyo hooyo iyo ehel laakiin uu soo dhuuntay si uu helo tacliin haddana wuxuu noqday xirti masaajidka si uu helo tacliin haddana asagoo arday ah uu shaqeynayay galin wuxuu u yeeshay nasiib in la qaado oo qaahiro loo qaado oo dugsigii oo sare ilaa iyo jaamacadii uu haddana ku dhigto mar labaad masaajidka al-azhar waqtigaas waxa ahayd kutumayadii oo jaamacatul azhar ma ahayn masaajid ma ahayn jaamacad oo dhisan waxay ku bilaabeen masaajid noloshii oo ka bilaabatay shalay masaajidka iyo xirnimada oo mar labaad haddana wuxuu ka dhigtay dugsigii sare iyo jaamacadii wuxuu bartay qaanuunka iyo sharciga haddana waagaas maba jirinba kuliyad kale oo la barto masaajidka azhar markii uu dhameeyay uu qalan jibiyay ardadii saaxiibadiisa ahaa waxay dhaheen hebelow waxa ku fiican tahay in aan noqotid wariyo maxaa yeelay cod ka raatahay markaasay dhaheen allah ilaahay waa inaan bartaa haddana saxaafadda mar labaad wuxuu bartay kuliyadii oo saxaafadda asagoo saxaafadii oo baranaya fasalkii dhexdiisa waxay iska jeclaadeen gabar oo masaari ah gabadhii masaarida ahayd markay gaareen in oo la qalan jibiyo saaxiibadiis waxay dhaheen hebelow in aad doonatid waaye heblaayo maadaama intaan aheedeen dad oo isjecel haddana waxay noqdeen dad ka macruuf jaamacaddii iyo magaaladii haddana same time waxay ka shaqayn jireen idaacad oo ka baxda qaahira oo afka Soomaaliga oo ku hadasha marka waxay ahaayeen dad oo isku jaamacada oo shaqo wadaag ah jacayl aad u qurux badan ay wadaageen markuu doortayna waxa loogu diiday in uu madow yahay waxa loogu diiday in uusan ahayn nin oo Masri ah maadaama ayada ay ahayd gabar oo Saciidi ah sida la sheego Masar dadka oo kale sida
oo gobolada dhexe ka soo jeeda ma guursan karaan dadka afgooy oo ka imaaday oo kale adiga Soomaali ah haddana waaxid aswad wala soo bursaday waa soo baxay wuxuu ku soo laabtay magaaladii adiga muddo kadib gabadhii soo laabatay oo imaaday waxay dhahday waxaan rabaa in oo maalintii ugu dambeysay ay guursatid oo aan isla baxno markaasuu dhahay may aniga ma kula baxsanaayo oo guur oo lala ordo ma sameynaayo maadaama ay ii diideen dadkaaga inaan Soomaali ahay waxaan tusayaa Soomaalida inaysan sameynin qaladka oo si saxa aan isku guursanayna haddii kalena waxaan nahay dad oo isjeclaaday maanan helin calafkeena maalin maalmaha ka mid ah waxay dhahday nakeen maanta waxaan aadaynaa bannaanka maanta ha noo noqoto maalin taariikhi ah maadaama ay diiday in ay la baxsatid oo guur oo bannaanka ah aan sameyno waxay noqonaysaa maalin aan ismacsalaamayno oo ah maalintii oo sukaya dambeysay waxaan noqonaynaa dad oo isjeclaaday oo shaqo wadaag ahaa arday isla ahaa laakiin aysan suuroobin calafkii maalintaas waxaa dhacday in uu tareen uu dardaro gabadhii oo ay dhimato oo haddana hortiisii ay ku dhimato marka wuxuu qaaday shoog wuxuu galay coma adiga 5 sano muddo kadib markuu soo fiicnaaday oo wuxuu dhahay aaway heblaayo waa dhimatay markaas maadaama uu ahaa nin oo bartay sharciga wuxuu qoray warqad oo dhahay heblaayo anigoo hebel aniga dilay waxa aan ka codsanayaa sharciga iyo dawladda iyo maxkamadda in oo lay dilo marka ardaydii iyo saaxiibadiisii iyo idaacaddii waxay dhaheen warqadda maanta aad qoraysid fiiri sanadka oo ku yaala iyo maanta sanadka oo la maraayo 5 sano hawada ka maqneedo oo isbitaal ku jirtay heblaayana adiga ma dili kartid waxaas waxba ma ka jiraan joog muddo kadib wiilkaas wuxuu ku soo laabtay dalkiisii hooyo wuxuu ahaa qaadigii maxkamadda dhexe ee Soomaaliya wuxuu noqday agaasimaha wakaaladda oo wararka oo Sona wuxuu ahaa Xaaji Kuwait Soomaalida iyo dadka inta badan way taqaanaa asagoo nin weyn ah oo 60 jir ah uu soo laabtay muddo kadib aabihiis oo waayeela garaacay maalin wuxuu dhahay ilaa waa in aad guursataa oo reer yeelataa maxaa yeelay adiga waxaa jirta 60 sano waa inaan arkaa wixii aad dhashay maadaama aad tahay reerkan ninka kaliya oo heer jaamacadeed gaaray oo 2 jaamacadeed ka baxay oo 40 iyo dhowr sano oo ku maqnaa qurbo oo maanta soo laabtay wasaaradda oo warfaafinta uu dhex deganaa adduunyo iyo rajo iyo guri iyo reer iyo ilmi waxaas dhan uu iska ilooway mar hore aabihiis ilaahay khayr ha siiyo wuu garaaco dhahay 5 maalin aan ku siiyay muddo 5taas maalin haddii aad ku guursan weysid gabar aad qabtid aan ku keenaya asagoo yaaban oo maxkamaddana qaadi ka ah agaasimihii oo wakaaladda oo wararka oo Soonana ah wuxuu arkay hooyo haysatay ilmo ajnabi ah ayadana ahayn Soomaali oo ka timid Carbahaas markaasuu dhahay ilmahan oo lagugu haysto anaa ku korinaayo ninkaana waa masaafirinaya oo waxaan geynayaa dalkiisa i guurso hal gabar oo heblaayo la dhaho ii dhal heblaayadana waxay ahayd jaceelkiisii magaceeda markaasuu dhahay hal gabar oo la dhaho heblaayo ii dhal markaasuu dhahday run ilmeyga mi hayne mi korine wax alla waxaan rabo misiine ninkanna meyga masaafirine okay marka gabadhaas caawo halkan nala joogtaa gabadhaas aniga waaye Muna Xaaji Kuwait Xaaji Kuwait wuu duqooway wuxuu noqday waayeel wuxuu fuulay sariir aniga oo Muna ah oo curadiisa ah oo jaceelkiisii Muna oo xambaarsan
إلهي وحو قدري حاج كويد إن أحنانيستو oo 15 sano oo sariir ii saarnaado oo aan reerkaygi aan ku waayo aan asaga aan xanaanisto ilaa aan ka dugto